السلام عليكم كل توعان وناكسن مeel kasta caalamka joogtaan kusoo dhawaada mawduucan kooban waxaan ka hadli doonaa faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo basasha tirsadooyin dhawaalo la qaaday ayaa hoosta ka xariiqaya faa'iidooyinka dhif iyo naadirka ee laga helo basasha tirsadu waxay tibaaxayaan in basasha laga helo faa'iidooyin aad u badan taas oo lagu soo koobay ilaa 5 faa'iido balse waxaan soo qaadan doonaa kuwa ugu muhiimsan waxa laga helaa waxa loo yaqaan quercetin maadadan oo muhiima habdhiska dhiig wareegga sidoo kale hoos u dhigta sonkorta sidoo kale quercetin waxay wanaagsan tahay waxa loo yaqaan caafimaadka wadnaha waxa sidoo kale la sheegay in basasha laga helo faa'iido kale oo fara badan waxaana ku jirta sonkorta loo yaqaan fructooligosaccharid tan wanaagsan habdhiska dheefshiidka waxaana joogtaysaa caafimaadka habdhiska dheefshiidka iyadoo sare u qaadaysa tayada iyo sidoo kale soo saarka bakteeriyada ku jirta habdhiska dheef mareenka tan oo shaqooyin badan oo muhiim ah u qabta qofka oo laga maarmaan ah noloshiisa waxa kale basasha laga helaa flavonoid tan oo laga helo waxa loo yaqaan antioxidants kuna ka hortaga waxa loo yaqaan free radicals haddii free radicals ay jirka ku jiraan isla markaana aan laga saarin kuna ka yimaada marka la burburiyo hanaanka waxa loo yaqaan metabolismka ee cunooyinka waxay sababi karaan inay dhaawacaan unugyada tan u keeni karta xanuuno halis ah dhinaca kalena basasha waxay wanaagsan tahay caafimaadka lafaha waxaana ku jira potassium sidoo kale waxa laga helaa basasha fiitamiino kuwa ugu wanaagsan caafimaadka guud ee qofka intaas ay ku soo gabagabeynayaan mawduucina ku saabsan faa'iidooyinka laga helo basasha tan kula dambe nabadgelyo.